بسم الله الرحمن الرحيم. إلياس أرنتا أوديسي أو maxay tahay Friday night focus group waxa waaye is caawin is wada lacagtiis wada jira gabdhuhu is caawinaya runtii gabdhaha aanu aad iyo aad ugu talagalay in is caawiyaan waxa waaye gabdhaha jaamacadda dhigta oo ma aragtay ama dhameeyay inay caawiyaan gabdhaha grade 5 laga bilaabo ilaa grade 12 in gabdhaha waxa yaala ay ka caawinayaan waxa kamid ah inay ma aragtay hor u sheegaan wixii ay soo mareen dhibaatada ay ma aragtay ay wanaag ay ka soo arkeen markay wax soo baranayeen iyo hadda guushan ay gaareen marka waxaan ugu talagalay gabdhahaas habeen walba oo ay tahay jimce in ay si yimaadaan waa 5 galabnimo ilaa 8 habeenimo 5 to 8 pm waxaana waxa waaye isugu imaanayaan Brighton Community Center qolka oo library-ga galab walba waa open albaabku u yahay gabdhaha jooga gabdhahaasina waxay sameynayaan inay u yimaadaan gabdhaha kale file-kooda qaadanayaan waxaan diyaarinay xataa report card-kii gabadha report card-keeda ayaan ka soo qaadnay waalidka waa wax private qof kale ma ogaanaya qofka la shaqeynaya ahayn gabadha haday bii keentay waxaan dhahaynaa maxaa ka hor istaagay inaa ay keento soo markaas ayaan waxaan la caawinaynaa 3 bilood inay gabadhaas termka labaad ay keento iyo plus waxaan kaloo la caawinaynaa inaan dhisno ma aragtay qabkeeda iyo ma aragtay in isla weynaato because ilmuhu markay daayooyinka ku jiraan waliba especially teenage-ka waxay aad u leeyihiin ma aragtay wax isbedel badan ku dhacay soo waxaan rabnaa gabar ay la sheekaysato kala hadasha u sheekaysa ma aragtay ay wax kasta u sheegato gabadhaasina waa qof oo ma aragtay si professional u shaqeynaysa oo wixii ma aragtay si professional u la qabanaysa waxaan kale aad ugu daray inaan career day event ku daro inay gabdhuhu si ogaadaan waxay rabaan inay bartaan soo programka waxa jira hadda June waxaan sameyn doonaa career day event oo aanu programyo community-ga dadka waxa ma aragtay kooda baxo dhan soo urureyno qofka waxaan rabnaa inuu isagoo yar garto waxa uu rabo inuu noqdo soo mar walba waxaan ka caawinaynaa wixii goolkoodu ahaa sidii ku gaari lahaayeen kus adduunka waa in ardayda jaamacadda Soomaaliya cid walba markuu sheego professor wuxuu ku leeyahay iyo grade-ka sanadka 3 jaamacadda dhiganay wali waxay bartaan inay noqdaan waxay rabaan inay bartaan ma yaqaanaan soo waxaan rabnaa inaan arintaas aan bedelo haddana gabdhahan rabnaa inaan ku bilowno programkan wiilashana waa ku xijeen anagu waxa lacag cidna siisay male waa from our own bucket iyo waqtiga ayaan ugu talagalay on ku caawina hadaa marka aan waxan caawiyo inaan wiilashina ku daro aan ma aragtay college geeyno tool ahaan ku geeyno jaamacadda waxay rabaan inay yaqaanaan aan specific uga dhigno markaas class inaan u bilowno waxaas oo extra curriculum ah hadda qofka science raba inuu qaato science kan rabnaa inaan u badino oo fahansiino oo aanu garaasiyada ma aragtay u tilmaano meelaha aadi lahayn haduu rabo engineer inuu noqdo haduu rabo ma aragtay inuu social worker noqdo qof walba wuxuu rabo inuu noqdo inaan waxaan rabnaa aan soo markii grade 12 gabadhu gaadho goolkeegu waxa waa ilaa haduu idmo inay 100% taqaano waxay rabto inay barato ayna wax badan oo koorsi ah soo qaadatay intay grade 12 gaarin marka waxa waaye waa program aan xataa inaan ku jira athletics run hadii la sheego dadkeena dhan wadankan jirooyin badan ayaa nagu wada dhacay waxaana lagu leeyahay waa dhid la'aanta ilmihuna ma dhididaan guriga iska fadhiya iskuul ka yimaada marka waxaan rabnaa inaan xoogaa ma aragtay wadnuhuna inuu shaqeeyo aan ku daro marmar programyo oo YMCA inaan geeyno basketball waa ku dareynaa champions ma aragtay shaqeen robo ku dareynaa waxaan kala sameeynaa guriyaha inaan tagno reading corner ilmaha inaan u sameeyno we want to make sure qofka aan la shaqeynayno inuu meel degan oo wax ka akhriyo uu leeyahay gurigaas hooyadii hadeen u sameyn annaga rabna xataa inaan lacag iska ururno oo make sure gareyno inuu miis haysto nal haysto meel ka baxsan TV oo waxba shaqaanahay oo aad u focus gareyn karo inuu joogo marka runtii programkan aad ugu soo fikray wax badan baan soo ku fikreynay ilaa 10 sano ka hor inaan sameeyno ilaahay baa hadda noo suura galiyay marka sidaas ayaan rabnaa inaan u wadno cidin caawinaysa waxa kamid ah gabdhaha jaamacadda dhigta wiilasha intaba oo cidin caawinaysa oo ma aragtay nala hore marka nala sameynaysa marka sanadka hadii aad sanadkiisa dambe bishu markay tahay March hadda opening ceremony wasaga Friday hadii ilaahay waxaan rabnaa inaan sheegno inta success aan aragnay inta aan ku dhacnay marka hadii ilaahay masaas ayaan ugu talagalay